وسلم وسوكم يا علي جامع حبيب بو waxa laga hayaa lixalo wada gaar aha go'aanaya mooyi gudoomiye caynaanshayn badan baalkan laga sii tiriyay amaantiisii iyo waxqabadkiisii waxaan say leelaawi karin horumarkii joogtada ahaa ee uu ku hayay ama uu ka waday waxbarashada gobolka isbedelkii joogtada ahaa ee maalin walba uu fikirayay uu dorosayay ee ka muuqata waxbarashada gobolka qiyaadadiisii iyo hogaamintiisii hufnayd ee dhabar adeega lahayd ee controlka lahayd ee hagista lahayd muxuu ahaayay intaba huwaneyd ayaa la ilaawi karin waxa la ilaawi karin aqoontii uu lahaa manaahijta iyo siyaasadda waxbarashada ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba oo haddii aan taasi jirin qaabka ugu wanaagsan ee ugu quruxda badan ee ay u dhameystirantay una hana qaaday maamul daadajintii waxbarashadu may dhacdeen waxa kamid ahaa oo aan la ilaawi karin waan soo koobayaa oo lagu xasuusnaan doona qulubteedana ku sii xardhanaan doonta takayufkii iyo muxuu ahaayay inuu qof walba kula macaamilo hogaanka waxa laga doonayaa qofka hogaanka nin walba wushiisa lagu wadaa shaqada waxbarashadu ma shaqa hayina oo fudud maaha tacliintu waa qof la dhisayo mustaqbalkiisa la hagaajinayo xumaan lagala dagaalamayo wax wanaagsan lagu shubayo si kale hadaynu cabirno shaqo binaada laga qabto waxa ugu mudnaatii ay ambiyadu ka qabteen at-tazkiya wa tarbiya wa shaqadii ambiyada waxbarashadu taasay la mid tahay marka sidoo qof walba ugu waday hadii alba leeyahay ugu waday muxuu ahaay ushiisa uu ku waday ee isugu hagayay ayaa kamid ahay waxa la ilaawi karin oo lixaad fahamka oo fahamsanaa ahdaafta asaasiga ah ee tacliinta ama waxbarashada qaranku ka lahaa ee haday tahay fidinta hadii ay tahay tayeeyta iyo hadii ay ahayd maamul wanaaga uu ku sifoobay sidoo u fahansanaa way masuulku hadaanu shaqadu qabanayo aanu fahansanayn amaantani ma timaadeen digaale hadaanu imaado anagu horaan u taasgaran hadaanu reer barbaranahay burco gobolka ugu adag gobolada Soomaaliland waanu dirna ilaahay baa qadaray inuu tago iyana way soo tijaabiso naanaysi kama soo raacin burco magacyadu way baarki gareysan yihiin baa la yidhiyo isagoo Ibrahim Digaale Maxamuuda ayay loo soo celiyaan naanays wadan ayay loo soo celiyeen waxaan ku noqonayaa in kasoo Maariya Siciidiga boobay wuxuu yiri anagu waanu soo galbinay Ibrahim Digaale eesh qiyaasig meedinaan soo galbinay waa soo rarteen anagu Ibrahim Digaale anagu aynaasho waanu dajinay dhul baanu siinay oo dadkamu tagin oo nin mas'uul ka tagay degmadii oo ka magacawnaayo gobolka ku magacawnaa ma ahayn taana taasaan ka gaaraya waxaan leeyahay daydiga waxa ka muuqda mar haddii inta loo dhan isku soo raacdeen macal xamaamtiisina oo soo qaadeen bariya reer Buucow goolkaasi uu idin la yaalaa marka waxaan leeyahay waa laba mas'uul runtii waa maantooda in badan halkan laga xusay waxaan leeyahay sida ilaahay idinku asturay mas'uuliyadii horeba tan dambe ku kala noqoteena ilaahay aduu ka asturo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.